saalim dadku wuxuu ugu jawaabay dadka qaar looma iibsado si ay u shaqeeyaan ee waxaa loo badbaadiyaa si ay u noolaadaan. bal hadalkaas miisaankiisa fiiriya. dadka qaar looma iibsado si ay u shaqeeyaan ee waxaa loo badbaadiyaa si ay u noolaadaan. abka Ramaad Bay waa ab kuu sahlaya adiga oo jooga goobtaada shaqo nasiina ama gurigaaga inaad asxaab ehel ama shaqo wadaag aad u diri karto qarashkii aad doonto. Ramaad Bay waxaad ku isticmaali kartaa 20 gobol oo Mareykan sida Texas iyo California adigoo u diri kara lacag guud ahaan Soomaaliya iyo inta Soomaalidu degto Itoobiya iyo Kenya. inta waxaa dheer in xiriir wanaagsan la leeyahay bangiyada Itoobiya qofkii doortana loogu diri karo waliba sharafka ugu fiican ama ugu macquulsan ayaa lagu siin doonaa. George walwalka hadda la soo dag abka Ramaad Bay. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا وناكسن امان داوداش ku xiran xogmaal media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni tabi boogahayga xalqadiisa 10aad xalqadeena maanta waxaan ku soo tabinaynaa qiso aad u xiiso badan oo aan ugu magac darnay ninkii saboolka ahaa iyo wiilkii adoonka loo haystay qisadeena waxay ka dhacday magaalada Dimashq waxayna ku bilaabanaysaa nin lagu magacaabo Saalim wuxuu ku noolaa magaalada Dimashq wuxuu ahaa qof ganacsada ah. Saalim ganacsigiisa ma ahayn ganacsi aad weyn oo la dhigi karo maanta qofka qof taajir ah waaye laakiin se ganacsi yar oo noloshiisa kaafinayo uu haystay dhaqaale aad u badan ma uusan haysanin laakiin taas bedelkeeda wuxuu ahaa qof aad daacad u ah daacadnimadiisa magaalada dadka joogo dadka suuqa kala shaqeeyo ganacsatada xitaa kuwa waaweyn ee ganacsatada asaga ka sii yaryar xitaa daacadnimadiisa wada ogaayeen laakiin se qof aad u nasiib badan ma ahayn Saalim saas ay tahayna daacadnimadiisa marnaba kama tanaasulin heer marka wuxuu gaaray daacadnimadiisa dadka ay ku caayaan dadku way ku qosli jireen heer waxaa maroonaa adduunyada xumaanta meelaha ka gaaray waxaa maroonaa qofka daacadda ee inaan la yaabno. Saalim mar walba dadku waxay dhihi jireen daacadnimo calool laguma buuxsho ayagoo kala jeedo daacadnimada badan iska dhaaf magaalada gal dadka intaa faraha ka geli been u sheeg saalcag badan u heshid laakiin asaga mar walbo hadalkaas dhagjalqan u siin jirin wuxuu ugu jawaabi jiray qofka dadka qiyaameeyo wuxuu lumiyaa naftiisa ka hor intuusan dadka dhuminin waa hadal iyo miisaan oo qofkii caqli uu fahmi karo wuxuu weli sii adkeysanayaa daacadnimadiisa wuxuu taagan waxaa daacadnimo ku waayay inaa qof qiyaameeyo ku helaayay maalmaha ka mid ah waxaa suuqa imaaday nin ganacsada ah oo magaalada laga yaqaano oo lagu magacaabo Xaaji Cabdalla wuxuu waday wiil yar oo adoon ah oo 13 jir ah oo wajigiisa ka muuqato murugo badan cabsi fara badan madluunimo qof aad dareemaysid qof kula socdo inuusan ku qanacsaneen marka hadda anaga sabanka aad joogno inuu qof bini aadan qof kala adoonsada wax jira ma jirto alxamdulillah ilaahay naga soo gudbiyay jaahilnimadaas laakiin xilliga hore waxaa jiri jirtay qof bini aadan sida xoolaha inta la soo wato suuqa la keeno oo la yiraahdo gata qofkan qofkaas qofka gato uu shaqeynaa anaga hadda marka gabar shaqaalo ama wiil shaqaalo camal u baahano waxaan dhahnaa qof hebel familki ama qof qaraabe inta waxaan dhahnaa caawina u baahanahay qofna caawiya u baahanahay kadib qofka qof qaraaba lagu keena ama gabar caadi oo rabta inay shaqeysato lagu keena qofkii kula jooga ma ahano si insaaniyad loo kula noolaana qofka suuqa ka soo gadato maahan laakiin marka hore waxaa dhici jirtay qofka inta la soo wado sida ariga iyo geela loo gado inta suuqa la keeno la dhihi jiray qofka adoon waaye iga gata marka alxamdulillah ilaahay naga soo gudbiyay xilligaas marmar qaar waxaa sameyn jiray markuu roob da'o dhiiqada iyo biyaha inta dad qaar la jiifiyo looga talaabi jiray dad qaar beeraha lagu falan jiray dad qaar silsilada lagu xiri jiray adoonnimada iyo rafaadka nolosha ilaahay naga soo gaarsiin anaga alxamdulillah marka xilliga sheekada ay dhacday waa xilligaas ee noloshaas lagu jiray marka wiilka yar dadka oo suuqa la keen way fiirinayaan way qiimeynayaan saan u fiirna waxay leeyihiin tabar badan ma lahan shaqo badan ma qaban karo qiimo badan ma lahan qof dhan oo insaan ah sida xoolaha la qiimeena suuqa marka ari u doonatid waxaa la sameynaa mahano ariga inuu cayilan yahay inuu hilib leeyahay in kale waa iska fiirine xaalada kan caato waaye hadaan dadku u qalo waxba lagama helaa sidaas camal mahano asagana sidaa loo qiimeynaa waxaa lagu leeyahay tabar ma lahan wax badan ma qaban karo ma dameer lagu xamaalan rabaa qofkan tabartiisa xaa uga gale qiimo badan ma lahan lagu leeyahay qof insaan oo ilaahay qiimo ikraamo siiyey lagu leeyahay qiimo badan ma lahan marka dadka suuqa joogo oo wiilka la dhex keenay waxaa ku dhex jira Saalim ninkii ay sheegayo daacadda ahaa oo ganacsada ahaa ku dhex jiro dadkii marka
saalim dadka meeshay wax ka arkaan ma ahane meel kale wax kale wiilkan wejigiisa ka dhex arkaa. wuxuu ka dhex arkaa inuu yahay nin caqli badan, wuxuu ka dhex arkaa inuu yahay qof edeb iyo akhlaaq leh. sidoo kale wuxuu ka dhex arkayaa wejigiisa yacni qof murugo ka muuqato haddana murugadiisa qarinaayo inuu yahay ka dareemay. kadib wuxuu weydiiyey wiil yahow maxaa hoos yacni la fiirinaysaa marka yacni wiilka yaraa yuusuf aldhaha magaciisa wuu madluunsanaa hoos u fiirinaya. wuxuu yiri maxaa yacni la murugaysantahay. yuusuf intuu hoos fiiriyo wuxuu dhahay hooyaday iyo aabahay buwaan waayey meel cidlaha soo istaagay sidaas darteed ayaan adoon u noqday. yacni qof aanan family haysan meel ku noolaadaysanin buu noqday, sidaas daraadeed waa adoon u noqday. dadkii meesha joogay way ku qosleen. yacni wiilkaas yar oo dhahay hooyaday aabahay ayaa waayey wax lagu qoslo ma ahan, wax damiirka insaaniyadda yacni ay ku shaqaysan maahan in lagu qoslo. adiga way ku qosleen ayagoo hadalkiisa yasaayo, ayagoo yacni ku diganayo ku digasho camal macnaha suuqa lagu keeno lagu gadanayo ayagoo ka wado bis way ku qosleen. laakiin saalim dadku wuu ka duwanaa, yacni wuu la murugooday wiilka, wuu dareemay xaaladiisa. adiga saalim arrinta wuu ka murugooday, yacni dadka wiilka way ku jaasjaasayeen arrintiisii wax yacni la murugooday maysan jirin. saalim marka dhaqaalo badan muusan haysanin, haddana wuxuu isku dayoyaa wiilkan inuu iibsado si noloshiisa uu wax uga bedelo. saalim wuxuu dhahay anaa kaa gadanayo wiilkan oo adoonka moodid anaa kaa gadanayo. dadkii meesha jooga way ku qosleen, adigaaba faqiir ah, adigaa waxba haysanin, dukaan yaroo caliye ah suuqa ku leedahay, maxaa iskaga dhigaya nin taajir ah, maba gadan kartid adoonkan. asaga hadalkooda waxba ka muusan soo qaadin, adigii wiilka wuu gatay. marka hadalku way kusoo celceliyeen dadkii, waxay dhaheen maxaa faqiiraa tahay maxaa ka gadanay, yacni way ku celceliyeen. kadib saalim dadku wuxuu uga jawaabay dadka qaar looma iibsado si ay u shaqeeyaan ee waxaa loo badbaadiyaa si ay u noolaadaan. bal hadalkaas miisaankiisa fiiriya, dadka qaar looma iibsado si ay u shaqeeyaan ee waxaa loo badbaadiyaa si ay u noolaadaan. yacni saalim wiilkan markuu gadanayoba muhiimadda u gadanayo maaha inuu wiilkan ku shaqaysto ee wuxuu rabaa noloshiisa inuu badbaadiyo maadaama uu dhahay hooyaday aabahay waa waaye, wuxuuna dareemayaa nolol qurux badan inuusan soo arkin. so wuxuu u gadanayaa inuu guriga keeno sida ilmihiisa ugula dhaqmo. kadib saalim wiilka yaraa uu soo watay gurigiisuu keensaday, cuntuu siiyey, meeluu seexdo, dharkii uu ka bedelay, wuxuu yiri naso oo jiifo. wiilka yaraa yuusuf wuu ooyey, markaasuu yiri maxaa la ooynaysaa. markaasuu wuxuu dhahay tan iyo markii la ii iibsaday maanan arkay qof sidaan iigu naxariisto. marka waxaa dareemayaa wiilkaas dhowr qof inay iska iibiyeen, macnaha dhowr qof uu isku marmaray because haddii tan ugu horeyn lahayd muusan dhihi lahayn tan iyo markii la ii iibsaday. yacni intaas la iibsanayena muusan arkin qof u naxariisto. marka noloshiisa wuxuu isleeyahay maba jiraba qof insaan ah oo yacni kuu naxariisanayo. wuxuu la qabsaday naxariis darro iyo in si qartaate ah lagula dhaqmo u bartay. marka wuxuu yiri maalintii tan iyo markii yacni la ii iibsaday ilaa hadda maanan arkin qof sidaan iigu naxariisto. wuxuu yiri ma jiraan adduunyada dad sidaan u wanaagsan, ma u maleynayn qof sidaan iigu naxariisanaya adduunyada inuu ku nool yahay. adi habeenka wiilki farxadu la seexan waayo. maalmihii xigay yuusuf wuxuu soo raacay saalim, wuxuu yiri dukaanka aad gadaysid aan rabaa inaan kaa caawiyo. yuusuf dukaankii hala keenay, wuxuu kala bartay qiimaha oo badeecada, wuxuu bilaabay dukaanka inuu dhinaciisa uga shaqeeyo. dukaankii markuu joogay bilooyin macaamiisha dukaankii imaanaysaa u jeclaatay. macaamiil ka badan in waxay noqotay isku sheego oo la dhaho wiilkan wiil akhlaaq badan waaye, wiil ixtiraam badan waaye, wiil fiican waaye, yacni dukaankaas wax ka gadanaa. yacni marmarka qaar shakhsiyadaada guul ay ku horseedi kartaa, waana sida saxda ah. yacni shakhsiyadiisa wanaagsaneed, ixtiraamkiisii wuxuu ku kasbaday macaamiil fara badan inuu dukaanka u keeno. yacni heer waxaa la gaaray adeer saalim la dhaho magaalada iska gal ama ganacsi kala sameyso ama guriga iska joog iska naso. yuusuf kaligiisa dukaanka gadaayeen. ganacsigu wuxuu bilaabay inuu sii kobco, inuu weynaado, ileen kulama aan macaamiil badan heshid waa kulama ganacsigaaga u kordho. dukaankii yuusuf oo mas-uul ka noqdo waaba kanaa dukaanka kala socdo. markii dambe waxaa marka soo ogaaday nin asna ganacsatada magaalada ka mid oo lagu magacaabi jiray xaaris. wuxuu bilaabay marka weligaa allaha ma arkino biniaadamka qofka markuu tallaabo qaado oo qof kale u arko inuu daba socdo wuxuu bilaabay qofkaas inuu hoos u liido.
waxaaba la bilaabay in laga maseero odayga dukaankiis intaanu la egyahay uu yaryahay suu intaanu macaamiil ku helay see ku dhacday in lagu mashquulo laga hinaaso oo noqotay marka ganacsadahaas oo xaaris la dhahayay wuxuu isku dayay odaygan inuu qartaateeyo wuxuu yiri daacadnimadii ee dadku u yaqaaneen inaa soo gabagabeeyo igu balan yacni kaligiis naftiisu balan ka qaaday wuxuu rabaa odaygaas miskiinka oo daacadnimadiis magaalada in laga yaqaano oo heer daacadnimadiis lagu caayo uu gaaray inuu bulshada ku jeediyo oo qof xun uu ka dhigo ninkii xaaris wuxuu sameeyey maalmaha ka mid si qarsoodi oo dukaankii Saalim lacag ugu qariyay yacni ma aqaan qaabka ugu suurta gashay ma wiilkii yaraa uu sasabtay oo gudaha ku soo galay wuxuu yiraahday meesha waa ku nasanaa ma aqaan adiga u suurta gashay ugu dambeyn inuu dukaankaas lacag ku qariyo abooheylo tartiibtiisa waa soo baxay magaalada wuxuu geliyay in lacag ka maqan tahay wuxuu yiri lacagta iga maqan dukaamadan oo igu hareereysan oo meeshan ku yaalo meel ahayn kuma yaalo ma uu shaksan dukaamadan aan hal ibaaro waay lacagtaas ugu shaksan dukaamada la baaro dukaanka Saalim soo dhaxgali doona ma safa laga soo bilaabay kana la baaro laga soo way kana laga baaro laga soo way kana laga soo baaro laga soo way ugu dambeeyay Saalim oo marka hore loogu talagalay dabankii lagu rido aal imaaday wuxuu yiri marka ana baaranayo meeshii asaglam ku ogeeno baan meer wuu soo warwareegay intuu galay ilaa already lacagta meeshuu gulin ninkan uu ogyahay wuxuu isla meesha toos u abaartay dadku ku fahmayaan bal xoogaa meelaha kale isku mashquulay meelaha kale isku mashquulay ugu dambeyn lacagta meesha ku jirto dalqeer markaasuu yiri lacagtayda waa tana fadeexo magaalada u galiyay ninkii daacada ahaa ninkii waa fiican yahay la dhahayay saan ma u dambeysay inuu lacagta dadka xado dadka dhan waxay bilaabeen in odaygii ninkii Saalim ay aflagaadeeyaan ee dhahan daacadnimada ku dhuumaneysay miya anaga daacad iskeen dhigaysay ilaa dadka saana u xadi jirtay ilaa lacagaha islaamka saana maxaa la qarsan jirtay ijaafo magaalada gees ilaa ka gees loo geystay ninkii Saalim dadka magaalada markay fadeexaysteen Saalim waxay dadku xig sugaa inuu falceliyo inuu daacadnimadiisa dadka ka dhaadhiciyo hada waa dadkii shalay daacadnimadiisa zaa'idka yacni ku caayinay amaanta dandhooyo asaga marka muusan hadlin dadku waxay sugaan inuu jawaabo inuu qayliyo inuu dhawaani mismaynin uu aamusay laakiin wiilka yaraa Yuusuf ooye wuxuu yiri aniga macalinkeyga waxa ma xado waa ku qaldoomoosiin kadib waxa la wiil yar shal suuq laga soo gataatay naga aamus hadalka ay cutmaysanaysa malahan hadalkiisa lama rumaysano bartiya looga socday adiga markuu Saalim aamusay wiilka yaraana hadalkiisa la rumaysan waaya odayaasha magaalada waxay isku raacay Saalim ganacsigiisa in la xiro oo suuqan laga eriyo masku soo raacdeen oo yiraahday maalin maanta heena noo balame Saalim gurigiisa oo imaaday habeenkii wiilka Yuusuf wuxuu dareemay culeys diiqad yacni inuu qalad galay marar buu ooyna wuxuu leeyahay aniga dartay lagu ijaafeystay aniga dartay lagu dhibaatay awal dukaankaaga yaraa kaliya iska gadan jirtay wax dhibaato ku imaan jirin maalinta aniga ku imaado dhibkaan ku imaaday yacni wuxuu isdareensiyay inuu asaga qalad galay inuu dhibkan asaga u keenay adeerka dhib ma aha faa'iido u keenay laakiin asaga wuxuu isleeyahay yacni hadda adiga imaan lahayn dhibkan ku dhici lahayn Saalim wuxuu dhahay wiilkaygiyo waxba ha ismurjinin wax qalad oo iga sameysay ma jiraan mar walbana qofka wanaaga sameeyo waa la imtixaamaa ani adigana wuxuu yiri wanaagi aan sameynay iyo daacadnimada baa imtixaankan ku maroonaa maahan wax qalad adiga aan sameysay ma jiro ani wax qalad aan sameeyay ma jiro adiga dukaankii markuu uu muddo xirnaa maalmaha ka mid waxaa imaaday dukaanka nin u shaqeyn jiray xaaris ninkii ganacsadaha ee lacagta dukaanka qariyay nin u shaqeyn jiray dukaanka Saalim imaaday waxaa arkay dukaankii oo xiran wuxuu marka arkay Yuusuf uu wacay wuxuu yiri Yuusufow dukaankiina lacagta oo laga qabtay waxaa geliyay xaaris waan u shaqeyn jiray dabeecadiisa aqaana horumar dadku uma ogola kaligiis inuu wax cuno rabaa dhowr qof hadda kor sidaas ku sameeyay dukaankiinana asaga wax ku qariyay waxaa rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan maxaa lahaayay odayaasha shalay idinku dacweynaa idinkana ku dacweysiin Yuusuf oo soo orday odayaashii oo imaaday wuxuu yiri dukaankaas xaaris ku qariyay lacagta asagana wuxuu yiri na ijaafeystay ninkaas hanagala gardhiga waa macnaa inta soo ganacsigan u xirnaan xaariskii loo wacay uu inkira inta laga maray wuxuu isku dayay inuu ismeemeeriyo ugu dambeyn markuu arkay in wax lagu haayo oo bahasha jiq ay ku tahay dantu waxay ku kaliftay inuu u qirto wuxuu yiri been ma fiicno ninkaas aniga u geliyo lacagta sababta uu gelin waxay ahayd ganacsigiisu waa yaraa soo ganacsigiisa yar yahay
oo wuxuu rabaa inuu anagoo ganacsata waaweyn naga daba imaado. Marka wuxuu yidhi si uusan nooga daba imaanin oo macaamiisha ay uga kala cararaan oo ganacsigiisa dhulka u galo baa anigu u sameeyey waxaas wayna ii suurta gashay. Laakiin hadda maadaama la iigu soo qabtay qaladkayga waa akhrinayo wax alaale waxa igu xukuntii inaan diyaar u ah. Dadka magaalada markay maqleen lacagtaas inuu xaarid meesha ku xareeyay oo Saalim wax dambi ah ku lahayn ayaga dhan way yaqyaqsiyoodan way isceebsadeen sababtoo ah shalay waxaysan hubin ay Saalim ku ijaafaysteen. yacni markii lacagta la soo geliyay way caayeen waxay dhaheen daacada iska dhigi jirtay dadka dhici jirtay inay hadalkaas shalay ahaynay maanta ka qowmeenooyin. Saalim ay u imaadeen marka waxay dhaheen Saalim waa kugu qaldanay sharaftaada u gafnay waa ku ijaafaysanay naga raali noqo. Markaasaa wuxuu dhahay ninkaas asaga jawaabihiisa jawaabo ma dhibaanbo dadka ayaga la iswaalayaan waana asaga jawaabo afkale u saaran yihiinba. Kadib Saalim dadka wuxuu ugu jawaabay mararka qaar dadka waxay rumaystaan xaaladda iyo stage-ka markaas la taagan yahay ee qaylada iyo buuqa ah halkii ay runta ka raadin lahaayeen. Waana sax hadda maanta laba qof ay isqabsato buuqaas yaa loo badan yahay iyo dadka tuhmooyina fiirinayna laakiin ma dhaheeno waxa aan baaritaan ku sameyno. waxaa laga yaabaa qofka inuu been sheegayo ma dhaheeno bartaas meesha la taagan yahay xukun ku jireen. sanado markay kasoo wareegatay oo oday Saalim ganacsigiisa uu kacay wiilkii Yuusuf ah waa kan dalacay oday markuu ganacsigiisa u kiciyay asagana wuxuu yiri marka anina isku filnaansho gaar waayo ganacsi weyn oo asagana furtay. alxamdulillaah ganacsigiisii markuu furtay kadib muusan iloobin ninkii Saalim ahaa. suuqa waxaan ka bartay lacag laakiin nolosha waxay bartay nin sabool ahaa oo i tusiyey in bini'aadantinimadu ay ka muhiimsan tahay hantida. yacni wuxuu ka wadaa hanti iyo bini'aadantinimo marka la isbarbar dhigo bini'aadantinimada inay muhiimsan tahay. weligiis muusan arkin qof u naxariisto qof bini'aadantinimo tuso. maalinta la soo iibsaday wuxuu isdhahay waa lagugu shaqaysan doonaa sidii dameerka laakiin taas beddelkeeda wuxuu arka naxariis iyo guri sida wiil camal ugu nool yahay. yacni mar walba dadka hortooda wuu ka xosaa Saalim 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 ma iloobo marnaba ma iloobo. kadib markay muddo kasoo wareegatay oo isku filnaashadii ganacsiyo furtay ugu dambeyn marka wuxuu furay meel lagu qoodiyo dadka masaakiinta iyo ilmaha agoonta ah wuxuuna ugu magac daray Saalim qofka abaalka leh yacni oo qofka aan iloobin waxyaabaha lagu gartay ka mid ah. yacni goobtii uu furay wuxuu ku maamuusay ninkii shalay suuqa kasoo iibsaday ee noloshiisa bedelay buu ugu magac daray Saalim uu ku qoray. marka qisadan intaan ku soo gabagabeynana laakiin casharo badan ka barnayna. maxaa horta qisadan casharada ka barnayna casharada qisadan ka barnayna waxaa ka mid ah dadka wanaagsan marar badan waa la dulmiyaa laakiin runta gadaal ay ka soo baxdaa. daacadnimadu degdeg faa'iido uma keento laakiin sharaf ayay dhistaa. taasoo micnaheeda tahay yacni daacad haddaa ahaatid isla markii inaad faa'iidadeeda aa helaysid ma ahan laakiin qofnimadaada iyo sharafkaaga iyo ciisadaada ay dhisaysaa inaad daacad ahaatid. yacni inaad daacad ahaatid faa'iido aad ka helaysid oo aad dhehaysid maanta lacagaa ka samaynaya waxaas ma jirto laakiin sharafkaaga iyo bulshada ay ku ogaadaan inaad qof daacad tahay aaba wax loo dhigi lahayn. hal qof oo kuu naxariista ayaa bedeli kara noloshaadoo dhan. waxay ka mid tahay casharada aqsada ka barnayno. dadka mar walba ha ku xugminin hadallada dadka kale. okay dadka ha ku xugminin hadallada dadka kale. macnaheedu waxay tahay qof arkaysa qof hadalkaaga sheegayo qofkii ma baranaysid ama ma hubinaysid waxa inuu asaga sameeyay jaa qofkaas hadalka uu kuu sheegay aan qofka ku xugminaysaa. soo taasne waxay ka mid tahay qaladaadka nolosha lagu sameeyo. qofka qalbiga wanaagsan xitaa haddii uu sabool yahay raad ayuu adduunka kaga tagaa. taasoo micnaheeda tahay haddii aad sabool tahay laakiin bulshadaada aad daacadnimo kula joogtid oo aad ixtiraamaysid birri markaa dhimatid ma lagu dhahaayo hebel sabool uu ahaa laakiin waxaa lagu dhahaa hebel wuxuu ahaa qof ixtiraam badan qof daacad ah qof la dhaqankiisa fiican yahay qof naxariis badan aa lagu dhahaa. laakiin adoo hantiile ah markaa aad la dhimatid xumaan iyo xiqdi iyo khiyaano markaa la dhimatid dadka ma ku dhihi doonaan hebel hantiilo ahaan jire laakiin waxay ku dhihi doonaan kaasaa ummadda naftoo u galay xooluhu ilaahay si ummadda ku dhibi jiray khiyaanooluu ahaa naftuu noo keen. yacni mar walbo taytalka nolosha aa ka taagan tahay mala sheegi doono markaa dhimatid xitaa aakhir laguma xisaabin doono laakiin ficilka wanaagsan ee adduunyada aa uga tagtay unbaa lagugu sheegi doonaa. qisadeena maanta intaasoo kusoo gabagabeynaynaa. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen intaa ku kulmi doona xalqadan xalqada xigto. waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.